ayaa waxa uu beeniyay isla markaana waxba kama jiraan ku tilmaamay hadallo ay maalmihii ugu dambeeyay qorayeen qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha gudaha magaalada Hargeysa oo sheegay in gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Mudane Saleebaan Maxamuud Aadan lagu bedelayo gudoomiye cusub oo golahaasi uu yeesho isla markaana bay yiraahdeen uu taali kari waayay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland inuu si anba qaado hawsha gudoomiyenimada golaha guurtida Soomaaliland xildhibaan Cabdiraxmaan Shaadho arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi horta marka hore gudoomiyuhu howlgab maaha boqolkiiba boqol buu nin yahay buurac xilkiisa guta jooga ku awood leh halkaa hadduu joogana annaka nagala soo taliya horta marka ugu horeysa waa nin aan awoodiisu waxba ka naaqsanay indho iyo lugo iyo midna iyo jirahaan iyo caafimaadkiisa uu taam yahay horta marka ugu horeysa سوماتهم كلنا هدو هدي للدونو ده عض بالغ قاد كره وحكروا لغا قاد كره مجرتو إن كلنا وكي ساي وحين كاسا انك نسو غاري لكن وحلال wax ka jira ma jiraan gudoomiyu fasax buu ku noqday caafimaad halkana gudoomiyaha jooga annaka joogna dawladii baa joogta siilaayana شغل كمال هذا وحلا له كلية ودعاد يشاكو يو مثل خير